haddii aad nagala socoto barteena YouTube subscribe inoo saar, haddii aad nagala socoto barteena Facebookna follow soo dheh. Kooxda dhinaca propagandada ee Cabdiraxmaan Ciro oo fashilantay, sidoo kale dowladda Mareykanka ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in Ciro uusan ka qayb galin kulan looga hadlayay arrimo dekedeed, maaliyadeed iyo aqoonsi. haddaba qoraal cajiib ah oo ka soo baxay dowladda Mareykanka isla markaana lagu duray maamulkan fashilmay ee Hargeysa fadhigiisu uu yahay ayaa halkan idinku la wadaagaya, iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee magaaladaasi ka imaanaya gaar ahaan Hargeysa oo ah caasimadda labaad ee dalkeena hooyo ee Soomaaliya. sidoo kale waxaa halkan idinku la wadaagaya hogaamiyaha maamul goboleedka Puntland Siciid Dani oo weli ka fikiraya tallaabooyin laba ah uu qaadi lahaa, iyo sidoo kale odayaashii uu u diri lahaa dowladda federaalka Soomaaliya oo garbihiisa ka baxay. maxay Dani iyo Axmed Madow isku sheegeen? sidoo kale waxaa halkan idinkugu haya oo qodobadeena ka mid noqon doona dowladda federaalka ee Soomaaliya oo deegaano iyo degmooyin badan ka qabsatay kooxda khawaarijta iyo cadawgii jeclaa in Soomaaliya dhibaato ay ka dhacdo ay ku jiraan kuwa Soomaali ah oo hadda la yaaban xaaladda dalka uu marayo marka laga hadlayo dhinaca amniga iyo guulaha ay gaarayaan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya. sidoo kale waxaan idin hayaa dad Soomaali ah oo lagu arkay safaaradda dalka Jarmalka ee magaalada Berlin, gaar ahaan dadka sheegi jiray inaysan Soomaali ahayn, kuwaas oo qaadanayay baasaboorka Soomaaliya. haddaba faahfaahin ayaan idinkaga hayaa qodobadaas iyo qodobo kale. soo dhawaada mar kale. haddii barteena YouTube aad ku cusub tahay subscribe inoo saar, barteena Facebook ee aad kala socoto wararkana sidoo kale follow soo dheh. kooxda propagandada u qaabilsan ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Ciro oo fashilmay isla markaana waqtigan albaab kasta ay ka soo xirtay dowladda federaalka ee Soomaaliya, isla markaana la yaaban sida shacabka uu ugu sheegi lahaa in aqoonsi ay heleen, ayaa waxaa la leeyahay waxay ku fashilmeen qoraallo iyo sawirro ay faafinayeen waayihii dambe, taas ay ku sheegayeen in Ciro uu la kulmay mas'uuliyiin iyo sidoo kale rag maamuus leh oo caalamka inteeda kale ka socday kana qaybgalay shir ka dhacay dalka Switzerland. haddaba waxaa la arkay Ciro oo wiil yar oo dhalay madaxweynaha dalka Mareykanka oo shir ka dhacayay halkaasi lagu casuumay goobjoog ahaa, laakiin Ciro oo isku sawiray kana qaybgalay shirkaasi si uu u muujiyo warar propaganda ah oo ku sheegayo in uu arrimaha aqoonsiga wado shir heer caalami ah oo ka qaybgalay. ayaa hadda waxaa soo baxaya warar intaasi ka duwan oo aan rabno in shacabka Soomaaliyeed ay ogaadaan. warka wuxuu leeyahay Cabdiraxmaan Ciro kama qaybgalin shirka, waxa uu joogay mid kamid ah hoteelada ku yaala dalka Switzerland, laakiin shirka ay ka qaybgalayeen dhinacyo kala duwan oo ka yimid caalamka intiisa kale, laakiin dowladda federaalka Soomaaliya oo dowlad la aqoonsan yahay federaal ah maamusho guud ahaan dalkana ay uga qaybgalayeen mas'uuliyiin kala duwan. ayaa waxaa dhacday Cabdiraxmaan Ciro in uu dalbado ayaa la yiray mid kamid ah dhinacyadii ka qaybgalayay in uu sawir la galo si uu u muujiyo in uu goobjoog ahaa, laakiin warkii hadda ayaa laga daba yimid, waxaana lagu sheegay in uu ka qaybgalay shir arrimaha amniga, dhaqaalaha, iskaashiga looga hadlayay, isla markaana Ciro uu dalbaday in la aqoonsado. ayay faafiyeen kooxdii propagandada ee dhinaca Facebook u qaabilsaneyd ee Hargeysa joogtay ee Soomaaliya. Hargeysa waxay ka tirsan tahay Soomaaliya, taasi cid diidan ma lahan. haddaba wararka hadda soo baxay oo la daawacay waxay sheegayaan oo aan soo xiganaya afayeen u hadlay wiilka madaxweynaha dalka Mareykanka. waxa uu leeyahay Ciro ma uusan ka qaybgalin shir, laakiin waxa uu sawir la galay wiilka madaxweynaha dalka Mareykanka ayuu sawir la galay. mana jirto arrimo aqoonsi, arrimo amni, arrimo dhaqaalo iyo wax kale oo lagala hadlay, taasina waa wax aan wax ka jirin ayuu yiri afayeen u hadlay wiilka uu dhalay Donald Trump oo ah madaxweynaha dalka Mareykanka. sidoo kale xog la helay waxay sheegaysaa in Ciro uu dalbaday in wiilkaasi lala kulansiiyo oo uu sawir la galo, laakiin aysan jirin warka sida u faafiyeen kooxdii propagandada ee Cabdiraxmaan Ciro moodeysay inuu aqoonsi u keenayo. haddaba tani waxay noqonaysaa ayaa la leeyahay jab kale oo soo gaaray kooxdan oo fashilantay, isla markaana Soomaali diid ah, rabana inay sheegaan
soddon sano iyo ka badan in Soomaaliya ay ka go'ayaan caruurtiina been iyo propaganda u sheegaya markasta oo gudaha magaalada Hargeysa ee Soomaaliya ay sureen diyaarad ay ku sheegayaan in lagu xasuuqay laakiin taas waxaa la tilmaamay inay tahay been iyo propaganda oo iyaga ay xasuuqeen shacab kale oo Soomaaliyeed oo hadda ka go'ay deegaanadaasi isla markaana maamul cusub sameysay. adeega aan aragtidaada sida u aragtaa warkan lagu karbaashay ee lagu canaantay madaxda maamul goboleedka Somaliland ee Soomaaliya iyo Cabdiraxmaan Cirre beentiisii oo si toos ah dowladda Mareykanka ay uga daba tagtay. waa hagaag markana haddii aynu fiirino magaalada caasimadda ah Muqdisho waxaa kooda bishan ka dhici doona shir kala duwan ama looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan xukuumadda dan qaran la yiraahdo ee Xamse Cabdi Barre uu hogaamiyo ayaana shirkaasi dhigtay. waxay u dhigtay koox iyaguna lagu tilmaamay in ay yihiin kuwa qas iyo qalaas abuuraya oo rag siyaasiyiin ah sidaas ay ku eedeeyeen isla markaana danaha bulshada Soomaaliyeed ka soo horjeeda ajaanib iyo wadamo shisheeyana gacan saar la leh sida Imaaraadka oo kale sida lagu eedeeyay. haddaba yaa ka mid ah dadka la eedeeyay ee Imaaraadka la shaqeeya ee aan rabin inuu wadanka dego rabin in dowladnimo la helo baxsadkana ah oo dowladda Soomaaliya ka baxsanaya yaa ka mid ah. waxaa ka mid ah yaa la yiri Saciid Cabdullaahi Dani oo isku soo koobay deegaanada Puntland shacabkiina hadda ay naceen xaaladda deegaanadaasina ay adag tahay in lagu noolaado dhinaca miisaaniyadii xukuumadda federaalka Soomaaliya ugu talagashay in deegaanadaasi lagu kaabana uusan wax uga qaban. haddaba shirkaasi waxaa ka qayb galaya isla Dani iyo Axmed Madoobe laakiin waxaa marka hore faahfaahineynaa maxay Dani iyo Axmed Madoobe ku wada hadleen. Dani Axmed Madoobe ayaa isweydiiyay in shirka tagayaan maadaama Axmed Madoobe aan loo aqoonsaneyn hogaamiye dowlad goboleed waxayna isku sheegeen in madaxa ay geeyaan Axmed Madoobe oo dulqaato xitaa haddii lagu qaabili waayo in uu yahay hogaamiyaha maamul goboleedka Jubbaland la yiraahdo oo wax horumar ah waqtigan uusan ka jirin. haddaba dhawaan waxay labada dalbadeen in ciidamo tiro badan la imaanayaan Muqdisho laakiin lama oga in dowladda Soomaaliya ka aqbashay iyo in kale laakiin dowladdan waxaa la yiray uma socoto wax argoosi ah iyo wax qalalaas ah waxay rabtaa in dalka ay gaarsiiso doorasho qof iyo cod ah maadaama lagu qabtay gobolka Banaadir horeyna ay u sii wado oo deegaano iyo degmooyin kale oo gobol dalka ka tirsan ay gaarsiiso. haddaba kooda bisha oo maalmo ay ka harsan yihiin waxaa Muqdisho ka dhici doona shirkii ugu weynaa Axmed Madoobe iyo Dani oo dadkii ay maamuli lahaayeen ee labada deegaan ay aad u naceen dhibsadeenna marna ay dalbanayaan in laga horwareejiyo ayaa ka qayb gali doono. Axmed Madoobe waxaa lagu qaabili doonaa siyaasi mucaarad ah halka Dani lagu qaabili doono inuu yahay hogaamiye waqtigiisii gabaabsi uu yahay. haddaba waxaa la isku raacay dowladda federaalka Soomaaliya in ay leedahay awood weyn oo aysan jirin maamul goboleed ka soo horjeesan kara dhaliili kara isla markaana diidi kara amarada dowladda Soomaaliya waxaana arintaasi ku jabay oo tusaale ay u noqotay kuwa kale jabkii soo gaaray maamul goboleedka Somaliland ee Soomaaliya taas oo cawaaqib xumo kala kulantay dowladda federaalka Soomaaliya halka siyaasiyiintii jilbeesnaa ee Somaliland la yiray cashir ay ka barteen taasina waxay fariin kale u diraysaa madaxda Puntland iyo Jubbaland oo caqabad ku ah markasta dowladnimada dalkeena hooyo ee Soomaaliya. ciidamada qaranka ee dowladda Soomaaliya ayaa guulo waaweyn ka gaaray saacadii la soo dhaafay dagaalo iyo duqeymo xoog leh oo ay ka fuliyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. kooxdii qawaarita deegaano badan ayaa laga qabsaday waxaana hadda deegaano badan oo ka tirsan gobolkaasi Shabeellada Hoose iyo Shabeellaha Dhexe gacanta si guud ugu haya geesiyaasha qaranka Soomaaliyeed iyadoo dadkii shacabka ahaana ay aad u soo dhaweeyeen. marka laga hadlayo dagaalada socda waxaa jira rag siyaasiyiin ah iyo rag aan siyaasiyiin ahayn oo dhalinyaro ah oo shacab ah kuwaas oo raba in dowladdan ay fashilinto oo ay dagaalo qaadin isla markaana qaarkood ku farxaya in magaalada ay ka dhacaan waxaan ka hadlaynaa Muqdisho dhexdeeda ay ka dhacaan qalalaaso. kuwa qaarkood ayaa jecel waxaana ka mid ah kuwii sheegaya marka la qabanayo doorashada qof iyo codka ee gobolka Banaadir
in shacabka aysan tagin oo ay ku cabsi gelinayeen in khatar amni ay jirto, laakiin laga hortagay warkoodii beenta ahaa iyo propagandada intaba. mar kale waxaan ka codsanaynaa in barteena YouTube aad subscribe inoo saarto.